filimku wuxuu ku bilaabanayaa nin kale ku haya mindi tareen dhexdiisa sababtoo ah isaga waxa madax furasho ahaan loo siiyay lacag been abuura kamana labaynayo inuu toogto askari rabay inuu weeraro banaanka tareenka waxa soo baxday in boolisku uu sugayo isagoo ay rasaastu ka dhamaatay kadib wuu sii deynaya ninkii oo haystay laakiin si lama filaana la haystay ayaa tooriyeynaya askarigii waxaana soo baxday in dhamaantood ay ahaayeen dambiilayaal isfahansan qaybta xigta waxa lana tusaya iyagoo ka doodaya in qof la dilo waxa kale oo lana tusaya wiilkan meesha ku qarsoon oo ay hore u soo afduubteen waxayna madax furasho weydiisteen dadkii dhalay mar hore marka xigta muuqaalku wuxuu u wareegayaa guri nin taajira kaasoo uu duugayo wiil araga naafa ka ah isla markaasba waxa guriga soo galay koox tuuga ah oo ku khasabtay ninkii guriga markaa joogay inuu furo qasnadiisa maadaama uu yahay nin taajira si kastaba ahaatee mulkiilaha guriga ayaa u digaya wuxuuna u hanjabayaa tuugtii mid ka mid ah tuugta ayaa dabadeed iska siibaya wajigii markaa uu watay wuxuuna u sheegayaa saaxiibkii inuu dilo ninka markay dilaan waxay kaloo rabaan inay dilaan ninkan kale markhaatiga ah mana oga inuu naafa araga ka yahay laakiin ma aysan dilin markay ogaadeen inuu araga naafa ka yahay kadibna way cararayaan waxaana eryanaya booliska marka iska la joogo booliska ayaa arkaya wiil baaskiilkiisa ka dhacay inta kadibna way dhaafayaan wiilkan waxa la yiraahdaa waayi waana wiilka ay soo koriyeen shantan burcada ama shantan tuugo maadaama shantoodanba ay soo koriyeen waxay u yihiin shan aabaha ugu horeeya waa mid jaahila oo jecel inuu ku majaajiloodo wiilka yar aabaha labaadna waa mid fariida oo u naxariista si la midna daryeelo cunuga yar aabaha saddexaadna waa kan faraxsan oo horeyna u ahaan jiray mindi iibiye waana kii ninka mindida ku hayay markii tareenka dhexdiisa la joogay aabaha afraadna waa kan daryeela si la mida wuu jecel yahay cunuga yar aabaha shanaadna wuu necab yahay cunuga yar waxaana soo raacda gabadhan oo iyadana u sheegata inay hooyadii tahay waxayna joogtaa guriga shanta nin waayi aad ayuu ugu fiican yahay toogashada masaafo dheer aabaha afraad wuxuu rabaa in waayi uu aado dugsi farshaxan oo dibadda ah oo uu siiyo aqoonsi cusub laakiin aabaha shanaad ma ogola wuxuuna rabaa inuu cunuga yari noqdo dambiile xirfad leh sida iyagoo kale dhan kale waayi wuxuu fadhiyaa meel maqaaxi ah oo sawir ka qaadaya agagaarkiisa wuxuuna arkayaa gabadh uu jecel yahay si xirfad leh ayuu ugu dhoola cadaynayaa marka ay hablaha la socoto labadoodii waxay bilaabayaan inay isku soo dhowaadaan gabadhu waxay ammaantay sawiradiisa waxayna sheegtay inay aad u jeceshahay sawir qaadista laakiin waalidkeedu aana awoodin inay ka bixiyaan dugsiga sawir qaadista intaa kadib goobta ayaa u dhaqaaqaysa dhanka saldhigga halkaas oo wiilkii aragga naafada ka ahaa lagu wareysanayo si kastaba ahaatee wuxuu ku andacoonayaa inuusan waxba arkin kani waa baarihii Joy wuxuuna ahaa askarigii aabihii saddexaad uu tooriyeeyay markii bilowga filimka ahayd si kastaba ahaatee markhaatigii oo murugaysan ayaa ugu dambeyntii ka hadlaya wuxuu arkay si lama filaana waxaa jira nin boolisa oo sidoo kale basaas u ah aabayaashan shanta ah wuxuuna wargelinayaa aabihii afraad wuxuuna u sheegayaa inuu dhammeeyo markhaatiga ka hor intuusan saldhigga ka bixin kadib waxay ka codsanayaan waayi oo ah cunug yaraa inuu ku dhufto markhaatiga markuu ka tago saldhigga calaashaan inuu toogto markuu saldhigga ka baxo laakiin markuu u dhow yahay inuu toogto waayi wuxuu arkayaa bahal aad u weyn wuxuuna ka baqayaa inuu toogto wuuna ku guuldaraystay inuu rido xabadda aabihii shanaad ayaa dabadeed riixay cunugii yaraa kadibna ku riday qorigii balse nasiib wanaag waa mid faaruqa kaliya wuxuu rabaa inuu tijaabiyo geesinimadiisa intaa kadib aabihii labaad iyo kii saddexaad ayaa waxay soo qaadayaan markhaatigii markay guriga yimaadaan aabihii shanaad ayaa waayi ku jiidaya qolka hoose kadib wuxuu hortiisa ku dilayaa markhaatigii wuxuuna weydiinayaa sababta uu markii hore u toogan waayey waayi ayaa wuxuu uga warramayaa bahalkii uu arkay aabihii shanaad ayaa dejinaya wiilka kadibna wuxuu ku soo xirayaa qolka hoose markay qolka fadhiga joogaan waxay qorsheynayaan shaqadooda xigta waxaana soo baxday inay qorsheynayaan inay jebiyaan guri si la midna ay xadaan shahaadada lahaanshaha dhulka gurigan waxaa iskale Master Im iyo xaaskiisa hadhow waxaan ogaan doonaa qofka uu yahay Master Im intaa kadib mar labaad waxaa loo xil saarayaa waayi inuu tago markaa guriga oo u furo marka lagu fulayo albaabka hore askari ayaa ku dhow inuu ku dhowaado waayi aabaha shanaad ayaa mar horeba loo diyaariyay si uu toogto askarigaas laakiin waayi waxa u suurta gashay inuu albaabka furo oo uu galo nasiib darro waxaa soo baxday in xaaskii Master Im ay joogto guriga wayna xanuunsanaysaa dabadeed markay shanqadha maqasho way isqarinaysaa waxayna ninkeeda hoos uga diraysaa fariin aabayaasha ayaa markaa soo gelaya guriga si lama filaana waxaa soo dhacaya telefoonkii xaaska Master Im waayi ayaa maqlaya kadib wuxuu hubinayaa armaajooyinka halkaasoo xaaskii Master Im ay ku dhuumanayso laakiin waayi oo arkay iyada uu aamusaya umana sheegaya aabayaashii si kastaba ahaatee Master Im oo degdegsan ayaa guriga soo gelaya kadib halka waa lagu garaacayaa waxaana ka soo dhacaysa lugtiisa markaa ku rakibnayd calaashaan lugtiisa originalka maaha waa lug kale markaa loo geliyay isla
isla markiiba xaaskiisa waxa u suurta gashay inay baxsato aabihii shanaad ayaa wuxuu dharbaaxayaa waayi wuxuuna amrayaa inuu dilo Mr. Im isagoo ka cabsanaya ayuu aabihii shanaad si joogta ugu cadaadinayaa ilaa ugu dambeyntii uu toogtay marar badan ganacsadaha guryaha oo doonaya markaas inuu lahaado guriga Mr. Im ayaa Mr. Im uu hore uga diiday inuu markaa ka iibiyo gurigiisa dhan kale dilka kadib waayi wuxuu dareemayaa inay wax ka khaldan yihiin ku lug lahaanshaha dilka Mr. Im kadibna mar labaad ayuu si dhuumashaa ku soo gelayaa guriga Mr. Im si markaa uu hubiyo wuxuuna helay waraaqo uu ku sawiran yahay cunug maqan mise waaba isaga wuuna ka baqayaa inuu eego waxaana ka sii daran Mr. Im iyo xaaskiisu waa waalidka ilmahaas maqan si lamid waxa raacsan sawirka qofka markaa afduubay ilmahan waana mid kamid aabayaashii shanta ahaa si lama filaana cod ayaa hoos ka yimid oo wuxuu arkayaa xaaskii Mr. Im oo isku dayaysa inay isdaldasho waayi ayaa markaas badbaadinaya islaanta hadda qaar kamid aabayaasha ayaa raadinaya waayi kadib wuxuu si qarsoodiya u soo gelayaa goobta shaqada aabaha afraad wuxuu weydiinayaa waa kuma wiilka Mr. Im wayna soo baxday in sababta Mr. Im uu u diiday markaas inuu gurigiisa iibiyo wuxuu sugayay wiilkiisa oo la afduubay aabaha afraad wali wuu diidan yahay inuu sheego in waayi uu yahay wiilkooda ilaa ugu dambeyntii waayi uu toogtay goobtuna waxayna tusaysaa dhinaca isbitaalka qof uu soo dirsaday ganacsadihii ayaa isku dayay inuu dilo xaaska Mr. Im oo markaa dhakhtarka joogta isla markaaba waayi ayaa ka soo gaaraya oo weeraray ninkii ilaa ugu dambeyntii waayi uu dilay kadib wuu iska oynayaa isagoo arka markaa hooyadiisa dhabta ah wuxuuna u dhiibayaa mara uu markaa gacanta ku watay ayuu markaa gacanteeda u gelinayaa warku si degdeg ah ayuu u faafayaa hadda aabayaasha intoodii kale waxay eryanayaan waayi qolka hubka markuu aabihii ugu horeeyay eegayo qoryaha si lama filaana waayi ayaa weeraray waxaana dhex maray markaa dagaal waayi ayaa ugu dambeyntii ay u suurta gashay inuu baxsado aabayaashu waxay markan eryanayaan waayi si kastaba ha aatee markii aabihii ugu horeeyay uu ku dhow yahay inuu toogto waayi aabihii labaad ayaa isla markiiba ka leexiyey maadaama aan hore ugu soo sheegnay inuu yahay aabbo wanaagsan balse maxay kugu taalaa waa tuug waayi aad ayuu markaa ugu fiican yahay xirfadda baabuur wadista isagoo ugu dambeyntii u dhigay markaa dabin intaa kadib wuxuu aadayaa meeshii markaa lagu afduubtay oo ahaa markaa bakhaar duuga dabadeed wuxuu u yeedhayaa aabayaashii isagoo weydiinayaa sababta ay u soo koriyeen wuxuuna kale u sheegayaa inay berri u yimaadaan 10 subaxnimo intaa kadib wuxuu arkayaa bahalkii oo had iyo jeer markaa dhalinteedka ku arki jiray laakiin markan kama cabsanaya isaga wuxuushkiina si tartiiba ayuu markaa u baaba'ayaa wuxuuna sidoo kale marti qaadayaa ganacsadihii inuu isna markaa goobtan yimaado qorshaha uu meeshan ugu ballaminayana waa inuu labadoodaba markaa dabin u dhigo qorshihiina si wanaagsan ayuu markaa ugu socdaa markay labadoodiiba yimaadeen ganacsadihii iyo shantii aababa waayi ayaa isla markaaba bilaabaya inuu toogto qayb ka mida markaa shaqaalaha ganacsadaha si uu dagaalku u bilaabmo rasaas tiro badan ayaana dhex martay midba midkii ka soo horbaxa ayuuna tooganayay ilaa ugu dambeyntii ay soo hareen aabihii shanaad iyo kii labaad markan waayi ayaa ku dhow inuu toogto aabaha shanaad balse aabihii labaad ayaa markaa ka joojinaya wayna isla dagaalamayaan aabihii labaadna wuu dhacay bir ayaana ku dhigtay aabihii shanaadna isla markaasba wuu baxsanayaa wuxuuna kaxaysanayaa baabuur meel kalena ma uusan aadin si toosa wuxuu u aaday isbitaalkii ay jiiftay xaaskii Mr. Im halka marka uu joogo wuxuu ka sheekaynayaa sida ay wax u dhaceen waagii hore dhammaan shantan aabe waxay joogeen xarunta agoomaha Mr. Im aabihiis wuxuu ahaa agaasimaha aasaaska xaruntan Mr. Im wuxuu inta badan tegi jiray xarunta agoomaha si uu la soo ciyaaro aabahan shanaadna isagoo markaa caruura wuxuu arkayaa bahal la mida kii waayi badanaa uu arki jiray sida dhalanteedka ah laakiin ilaa waagaas bahalkani ma tegi doono wuxuuna arkayaa aabahan shanaad Mr. Im oo meel u dhow la fadhiya markaa gabadh uu jecel yahay wuuna xanaaqayaa wuxuuna ka xadayaa farxadoodii isagoo gabadhiina kufsaday dhacdadaas kadib Mr. Im oo yimid markaa si uu soo badbaadiyay gabadha ayaa lugta lagu dhuftay oo laga gooyay gabadha waagaasna waa gabadha markaa joogtay gurigooda ama shantan aaba gabadhii joogtay gurigooda markuu arrintaa ka sheekeeyo wuxuu dilayaa xaaskii Mr. Im waayi oo ordaya ayaa markaa yimid laakiin nasiib darro wuu soo daahay wuxuuna yimid hooyadii oo la dilay wuuna ooyi karaa uun markan aabihii shanaad ayaa ugu dambeyntii yimid guriga kadib meel ayuu markaa ku tiirsanayaa wuxuuna weydiisanayaa haweenaydii markaa guriga u joogtay inay sii soconto balse markan way diiday wayna habaaraysaa dabadeed gabadhii intuu jiido ayuu u hanjabayaa si lama filaana waayi ayaa yimid deedna u taagay markaa qorigiisa wuxuuna weydiinayaa sababta uu u dilay hooyadii wuxuuna ugu jawaabayaa hadal jees-jeesa isagoo u sheegaya inaysan muhiimba ahayn wuxuuna hab siinayaa cunuga yar isagoo u sheegay inay hadda wax walba iska dhammaadeen balse taas kama yeelayo maadaama waalidkiisoo dhan ay dileen inuu soo dhawaysto lagama yaabo wuxuuna samaynayaa inuu toogto dhammaantood dhammaadka filinkana waayi ayaa hadiyad siinaya gabadhii uu jeclaa
hadiyadaasoo ka kooban kamarad iyo sawir gacmeed. intii lagu guda jiray xafladda caleemasaarka wuxuu tooganayaa ganacsadihii kaas oo sababay dhimashada dadkii uu jeclaa. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii aad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan like garee si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xigo ku kulmayna waxaad kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.